kulankan ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada Somali Youth Cluster ayaa looga hadlayay talo wadaag iyo warbixino ku saabsan xaaladda maxaabiista daada yar ee ku jira xabsiga dhexe ee Xamar waxaana kulankaasi oo ka dhacay Muqdisho ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada xildhibaano ka tirsan golaha shacabka xeer ilaaliyaha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida iyo qaar kamid ah dhalinyarada mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa la weydiiyay su'aalo la xiriira dhibaatooyinka soo wajaha dhalinyarada ku jira xabsiga dhexe ee Xamar mas'uuliyiintaasi oo kamid ahaayeen wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye xildhibaanad Aamina xeer ilaaliyaha gudoomiye Shuute iyo xildhibaan Maxamuud ayaa waxa ay ka warceliyeen su'aalahaasi iyagoona ka sheekeeyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada marka waxaa la rabaa fursadan maanta iyo kuwa kale ee soo socda in aan kulligeen u wada istaagno aniga Khadiija Maxamed Diiriye ahaan ama wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaan ahay diyaar inaan idin la wadaago isdhaafsano si alla sidii ay suurtagal noogu noqon kartana fursadaha aan haysano aan uga faa'iideysano caqabadahana anaga oo wada jir ah aan uga hortagno in qofku horta maxaa dambi ah maxaasan dambi ahayn inuu kala kasaayo aad ay muhiim u tahay ka baarlamaan ahaan hadda shuruucda dalka inay dhalinyaradeeni wax ka fahansan tahay ama muwaadin kasto Soomaaliyeed sharcigiisa iyo dalkiisa iyo waxa lagu dhaqo inuu aad u yaqaan aad ay muhiim u tahay waxaad ogtiin baarlamaanka iyo xukuumadaba waxay aad ugu howlan yihiin shuruucdii dib u soo celintoodii kuwii jiray cusboonaysiintoodii haddii wax lagu dari karo haddii wax laga bedeli karo iyo haddii aysan jirin kuwa cusub in la sameeyo waxaa la rabaa marka in aad yani looga qayb qaato shuruucdaas la samaynayo wixii dhalinyarada ka taabanayo ayaga dareemaya xanuunka iyo dhibaatada in ay fikirkoodu ay ku soo jeediyaan qodobka koowaad aan leeyahay sidee dambiyada loo dhimi karaa waxay tahay horta bal dadka in la ogeysiiyo maxaa dambi ah shuruucda wadanka in dhalinyarada la baro dadka laga wacyi geliyo maxaa dambi ah maxaa dambi ah inkastoo in badan loo ogyahay dambiyadu iska muuqdaan haddana wax badan oo waxa jira wadanka bacdama burbur balaaran uu galay sanado badan oo burbursanaa dhalinyaradii waqtiga dhalatay iyo kuwii 3 jirka iyo 4 jirka ilaa 10 jirka ilaa 6 jirka ahaa aanay arkin nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn waxaan rabaa kaliya inaan ka abaaro arinta argagixisada anaga garsoorka ciidamada qalabka sida waa garsoorka hadda u xil saaran inuu qaado dambiyada ay galaan kuwa argagixisada ah ama nabadiidka ah oo ummadda dhibaatada ku haayo argagixiso marka aan ka bilaawno runtii waa arin caalami ah oo dhibaato badan ku hesho dunida oo dhan ficil argagixiso marka aad maqasho waxa kugu soo dhacaya dambi weyn oo khatar ah runtii xildhibaan Daahir Aamin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada kulanka ka soo qayb galay ayaa waxa uu ka sheekeeyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada daada yar xilligan waxaan talo ku soo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama xabsi ha ku jiro ama banaan ha joogo ama shabaab ha jiro ama dawladda ha u shaqeeyo ama dhalinyaro caadi oo waxbarasho ku jirta ha noqdee in aad raadisiin midnimo guud oo dhalinyaro taas waxaad ku gaari kartaan in xataa aad la hadli kartiin ka nabadiidka ee maanta colka idinla in aad warka gaarsiin kartaan waxaa hubaala maxaabiista hadda la sheegay daraasaadka aad soo bandhigteen waxay ku kooban tahay Xamar haddii la yiraahdo dalka oo dhan way ka badan yihiin muxuu ahaay 2600 gudoomiyaha Somali Youth Cluster Muna Xasan Maxamed ayaa sharaxday sababta keentay in ay sameeyaan talo wadaagan waxayna intaa ku dartay in ay qaban doonaan kulamo noocan oo kala ah ayna sii wadi doonaan ayna ka soo qayb gali doonaan dhammaan dhalinyarada dhibaatooyinka dhalinyarada haysta iyo sidii dawladnimada dalka dhalinyarada uga qayb qaadan lahayd dhalinyaradii iyo dawladii ma wada shaqeeyaan intooda badan si aan isugu soo jiidno dawladnimadii looga shaqeeyo nabadii iyo isdhexgalkiina aan uga shaqeeyno yaan u qaadanay foorumyada aan u kala bixin foorumyada waxay noqon doonaan dhigal foorumkiisa ugu horeeyay kaga hadleynay garsoorka iyo cadaaladda
iyo dhalinyarada maxaabiista ah sida ay u nool yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin iyo qaabka ay u nool yihiin iyo sida ay tahay marka ay ka soo baxayaan. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.